xubin oo dunida aqoonsi kama hayso sababtana waxa keenay cidna yaanay eersan Soomaaliyana ay eersan oo walaalaheed oo diin iyo diirba u xigay iyadoo hay seersato muran siyaasi ah gudigan bedel sharciyan ku bedela uma hayo warmaaya soo degtayba dalka iyo dadka intii la badbaadin lahaa 30 jirka iyo 20 jirka iyo 40 jirka maanta jooga mustaqbal loo sameyn lahaa ee dhalinyaro iska daba kacday culays bay keentay hadhow wadankan aqoonsi loo raadin lahaa ayaa 70 jir iyo 80 jir maydkiisoo laga dhex qaadan mooyaane ay mustaqbalkii dalka ku ciyaarayaan maanta aqoonsi aanu Soomaaliya oga maan baahdeen Soomaad garan oo walaalahaya oo haddii aqoonsi aan helo garabkooda aan ahaan lahaa oo aan u heelin lahaa oo aan garab joogsan lahaa oo halkan ka dhisi lahaa Soomaaliya taayidida waa Soomaaliland hays eersato 24 saacadood qodob siyaasi ay isku haystaan googa cigalle hal xubin oo dunida aqoonsi kama hayso sababtana waxa keenay cidna yaanay eersan Soomaaliyana ay eersan oo walaalaheed oo diin iyo diirba u xigay iyadoo hays eersato muran siyaasi ah gudigan bedel sharciyan ku bedela uma hayo warmaaya soo degtayba dalka iyo dadka intii la badbaadin lahaa 30 jirka iyo 20 jirka iyo 40 jirka maanta jooga mustaqbal loo sameyn lahaa ee dhalinyaro iska daba kacday culays bay keentay hadhow wadankan aqoonsi loo raadin lahaa ayaa 70 jir iyo 80 jir maydkiisoo laga dhex qaadan mooyaane ay mustaqbalkii dalka ku ciyaarayaan maanta aqoonsi aanu Soomaaliya oga maan baahdeen Soomaad garan oo walaalahaya oo haddii aqoonsi aan helo garabkooda aan ahaan lahaa oo aan u heelin lahaa oo aan garab joogsan lahaa oo halkan ka dhisi lahaa Soomaaliya taayidida waa Soomaaliland hays eersato 24 saacadood qodob siyaasi ay isku haystaan waa ambalaaskii oo jiiti ay ku qoran tahay oo cusbitaalka magaalada Boorama uu lahaa oo fadhiya qofka ku neef qabatooba magaalada Qolujeed ama Boon ama Dilaa matig baa lagu soo qaaday madaxweyne ku xigeen haddii aad awoodi kari weydeen 5 milyan ee aad sheegaysay ambalaas aad ugu iibiso haddii aad awoodi kari weydo 10 sanadood madaxweyne ku xigeen qaran ahayd inaad baahida gobolka aad matalaadiisa leedahay aad gufayso ma waxaad awoodi kari weydeen inaad mushaharkaaga ambalaas ugu iibiso ma waxaad awoodi kari weydeen waa ambalaaskii oo jiiti ay ku qoran tahay oo cusbitaalka magaalada Boorama uu lahaa oo fadhiya qofka ku neef qabatooba magaalada Qolujeed ama Boon ama Dilaa matig baa lagu soo qaaday madaxweyne ku xigeen haddii aad awoodi kari weydeen 5 milyan ee aad sheegaysay ambalaas aad ugu iibiso haddii aad awoodi kari weydo 10 sanadood madaxweyne ku xigeen qaran ahayd inaad baahida gobolka aad matalaadiisa leedahay aad gufayso ma waxaad awoodi kari weydeen inaad mushaharkaaga ambalaas ugu iibiso ma waxaad awoodi kari magaciisa la yiraahdo Meecaad Hotel waxaana uu dhinaca waqooyi kaga beegan yahay saldhigga magaaladaas Meecaad Hotel ayaa ah hotel aan nuuciisa hore looga dhisay magaalada Wajaale ee xarunta ganacsiga Soomaaliland waana hotel hurdo aad loo casriyay isla markaasina ka kooban 3 xubin oo dunida aqoonsi kama hayso sababtana waxa keenay cidna yaanay eersan Soomaaliyana ay eersan oo walaalaheed oo diin iyo diirba u xigay iyadoo hays eersato muran siyaasi ah gudigan bedel sharciyan ku bedela uma hayo warmaaya soo degtayba dalka iyo dadka intii la badbaadin lahaa 30 jirka iyo 20 jirka iyo 40 jirka maanta jooga mustaqbal loo sameyn lahaa ee dhalinyaro iska daba kacday culays bay keentay hadhow wadankan aqoonsi loo raadin lahaa ayaa 70 jir iyo 80 jir maydkiisoo laga dhex qaadan mooyaane ay mustaqbalkii dalka ku ciyaarayaan maanta aqoonsi aanu Soomaaliya oga maan baahdeen Soomaad garan oo walaalahaya oo haddii aqoonsi aan helo garabkooda aan ahaan lahaa oo aan u heelin lahaa oo aan garab joogsan lahaa oo halkan ka dhisi lahaa Soomaaliya taayidida waa Soomaaliland hays eersato 24 saacadood qodob siyaasi ay isku haystaan googa cigalle